waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag Chief Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse oo ka mid noqon doona cuqaasha gobolka Sanaag waxaana soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa maamulka heer gobol iyo heer degmo kuwaas oo kaga hortagay deegaanka Shiisho oo masaafo dheer u jira degmada Garadag waxaana halkaas lagu guddoonsiiyay hadhowgaal caana geel dhalaya kaasoo loogu sii diyaariyay intaasi kadib Chief Caaqilka iyo wafdigiisa waxa loo soo galbiyay dhinaca fagaaraha qayriyada geedka nabadda halkaas oo ay ugu diyaarsanaayeen kumanaan shacab iyo mas'uuliyiinta Garadag isugu jira oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta Chief Caaqilka ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay maayirka degmada Garadag Mudane Faarax Aadan iyo Caaqil Maxamed Cilmi Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale waxaana hadaladoodii kamid ahaa Garadag mar labaad waxaanu leenahay Chief Caaqilka ilaahay xilka aad qaaday ha ku fududeeyo annaguna hadaanu nahay dadka reer Sanaag waanu kula shaqayn doonaa waanu kula taageeri doonaa waxaan mar labaad aad iyo aad u codsanayaa dhammaanba madax dhaqameedka gobolka Sanaag ama Somaliland inay la shaqeeyaan isla markaana la bedelo waxyaalihii hore oo dhan iyo dhaqamada wanaagsan loo guuro oo lala shaqeeyo Chief Caaqilka qadiimiga shiiqa culimada ilaahay awowgii ka awow ahaa Chief Caaqilka soo ahaa gobolka Sanaag caanka ka ahaa degmada Garadagna aan maanta ku soo dhaweynayno kana dhashay deegaanka degmada Garadag aad baanu soo dhaweynaynaa insha Allah على مسارkiisa waanu ka qayb galeynaa haday madax dhaqameedka yihiin iyo haday qaybaha bulshada yihiinba waxaanu aad iyo aad u rajaynaynaa mar labaad ilaahay xilka u fududeeyo dhammaan reer Garadag way fahamsan yihiin Chief Kayse Chief Ismaaciil taariikhdiisana way hayaan haddana isaga hayna aabihii bay hayaan aabihii wuxuu aaninkii ugu taariikhda badnaa gobolka Sanaag uguna cimriga wanaagsanaa ilaahay cimrigiisa uu barakeeyay 100 iyo bar buu ku dhawaaday wuxuuna ahaa ninkii waxaa sameynay waxa ahayd waxa hogaankii ugu cadaaladda wanaagsanaa ka soo taliyay gobolkeena ilaahay cimrigiisa buu ka muujiyay taariikhna uu ku lahaa waxaanu rajaynaynaa Kayse inuu ku daydo oo sidii aabihii wali laba qof oo yimi cara kaga may tagin baa dhinaca kale ayaa isna waxa hadalka soo xidhay Chief Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse una mahad celiyay maamulka iyo shacabka reer Garadag waxaana hadaladiisa u dhignaayeen sida tan dareen badan oo farxadeed oo runtii aan qiyaas lahayn oo aan loo kala hadhin hadday maamul ahayd hadday madax dhaqameed ahayd hadday arday ahayd hadday nin garbood ahayd hadday waayeella ahayd waxaan dhex taaganahay maanta geedkii nabadda ee gobka ahaa ee reer Garadag caanka ku ahaayeen iyagoo aanu kala hadhin Chief Caaqil Kayse Chief Caaqil Ismaaciil Muuse oo ay u bareedayaan oo dareenkooda abtinimo muujinayaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa marlabaadka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka ilaahay ii dhiibay marka hore waxaan ka taagnahay halkii Cumar bin Cabdilcasiis raximahullah wuxuu yidhi sheekhaasi markii loo doortay wuxuu yidhi waxay iga soo ducaysaa fitnada iyo maanta la saaray sidaas maanta waa sabankii aynu joognaa waa saban adag waa saban fitan marka ilaahay waxaan idinka codsanayaa oo kow idinka codsanayaa oo ummaddan islaamka oo dhan aan weydiisanayaa sida Cumar bin Cabdilcasiis in ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo الله ينوفي تينا وصور سينا عاملك سحبة سيد سحبة بابتقى إلى هذا وحن لحلقة يا وحن هيتنا أقوى هاني يا وذلك جود بانو هاني وحن هيتنا كلام ولا ليه حوالي هلك يا بها جالسين ما لكن ما بس جالسين واسكت يعني ما ليه كله إن صوت هاجنا ونسكت يعني إن شاء الله تعالى إلهي نوحنا شيء إنه تاسنا يفلح دونه فرح بربرت التلفزيون كعالمي هون كيبل تي في دقمة ذكر أذك